Ra'iisul Wasaaraha 46 ee dalka Finland ayaa xisbiga Social Democrat u doortay inay noqoto Sanna Marin oo 34 jir ah sidoo kale waa gabadha saddexaad ee dalkaasi ka noqonaysa ra'iisul wasaare. Waxa ay ku dhalatay magaalada Helsinki 16 November 1985. Waxa ay ahayd xubin ka tirsan baarlamaanka tan iyo 2015. Waxa ay sidoo kale ahayd wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta ee xukuumadda ra'iisul wasaaraha ka horeeyada ee iscasilay Antti Rinne intii u dhaxaysay 6 Juun 2019 ilaa hadda. Waxa ay ku soo biirtay siyaasadda 2012 oo ay noqotay gudoomiyaha konsulka ee degmada koonfurta ku taal ee Tampere. Waa hogaamiyaha xukuumadeed ee ugu da'da yar caalamka iyadoo ku soo biiraysa hogaamiyaasha sanadahooda sodomeeyada ku jira ee hogaamiya dalalkooda. Horay waxa uu ahaa Oleksiy Honcharek ra'iisul wasaaraha Ukraine, Nayib Bukele ra'iisul wasaaraha Salvador iyo haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka dalka New Zealand Jacinda Ardern. Xukuumadda isbahaysiga ee dalka Finland ayaa ka timaada 5 xisbi oo dhammaantood ay hogaamiyaan haween. Afar ka mid ah haweenkan daadoodu waxa ay ka hooseysaa 35 sano jir, iyada oo Marina loo wado in ay noqonayso hogaanka guud ee midowga xisbiyadan oo uu wali hogaamiye u yahay ra'iisul wasaaraha iscasilay Antti Rinne. Falanqeeyaasha siyaasadeed ee Finland ayaa arrintan ku tilmaamay mid horumar u ah sidoo kalena astaan u ah siyaasadda jiilka cusub ee dalkan ku yaal waqooyiga qaaradda Yurub, kaas oo ay ku lahaayeen haweenku matalaad fiican tumanayadii sano ee ugu dambeeyay. Sanna Marin mar wax laga weydiiyay da'deeda iyo xilka ay qabatay ayay ku jawaabtay sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalkaas Yleis Radio: waligay kama fikrin da'deeda iyo jinsiga aan ahay, waxaanse ku fakraa oo kaliya sababtaan u soo galay siyaasadda, waana taas sababta aan u helay codka kalsoonida. Anne Hole oo ah professorad culumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda Helsinki ayaa u sheegtay New York Times inaysan ahayn wax ku weyn Finland inay haween noqoto ra'iisul wasaaraha. Waxa ay sheegtay in Finland matalaadda haweenka ee baarlamaanka uu sanado ahaa mid wanaagsan. Doorashadii 1983 haweenku waxa ay ka heleen kuraasta baarlamaanka 30%, 2007 waxa ay noqdeen 40%, bilowgii sanadkan waxa ay noqdeen 47%. Ma jiri doonto isbedel weyn oo ku imanaya barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga talada dalka haya, kaas oo ay la imanayso ra'iisul wasaaraha sida dhibka ah ku soo baxday, balse waxa jiri doonta isku shaandhayn wasiirada ah sida ay qorayaan wargeysyada dalkaasi. Waxa xukuumaddan cusub ay ka koobnaan doontaa 12 wasiir oo haween ah iyo 7 wasiir oo rag ah. Katri Kulmoni oo ah haweeneyda hogaamisa xisbiga Center Party oo 32 jir ah ayaa noqonaysa wasiirka maaliyadda. Maria Ohisalo oo ah hogaamiyaha xisbiga Green Party 34 jir ah ayaa sii ahaan doonta wasiirka arrimaha gudaha. Lee Anderson oo 32 jir ah ahna hogaamiyaha xisbiga midowga bidixda ayaa noqonaysa wasiirka waxbarashada. Afrika, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo 41 sano jir ah ayaa ah hogaamiyaha ugu da'da yar ee Afrika. Soomaaliyana sida uu xusayo cutubka 9aad ee dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 90aad ee qeexaya shuruudda hogaamiyaha dalka, waxa uu sheegayaa inuusan ka yaraan karin 40 sano. Dhalinyarada Soomaaliya ayaa bulshada ka ah 75% sida ku cad xog ururinta tirada dadka ee Soomaaliya ee laga sameeyay dalka gudihiisa sanadii 2014. sida aan ka soo xigtay buugga siyaasadda qaran ee dhalinyarada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ay daabacday wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ee xukuumadda hadda jirta. Tiradaasi waxa ay isha ku hayaan warcelinta su'aasha ganan ee ah goorma ay dhalinyaradu ka helayaan booskooda siyaasadeed saamilayda siyaasadda ee dalka.